maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas-uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قارئة هديتها مركي كورة سوابق تشاركين فضلا سبسكرايب لايك شير كومنت لأنه وداك أصحابتي سدوا هذا مقال عصب فيديوغينا waxaan uga hadlaynaa faa'iidooyinka mooska uu leeyahay. Mooska wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan lamana tirin karo faa'iidooyinka mooska uu leeyahay halkaana laguma soo koobin karo. Waxaa lagu tiriyaa mooska inuu yahay qudaar hodan ku ah fitamiinada kuwaas oo dadku ay ka helaan فيتامين A فيتامين B and فيتامين D sidoo kale mooska wuxuu hodan ku yahay qaar kamid ah macdanta kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka jirka bini'aadanka kuwaas oo ay kamid yihiin potassium carbohydrate sidoo kale wuxuu hodan ku yahay qaar kamid ah aashitooyinka jirka faa'iidada u leh. Haddaba warbixintan waxaan idinku soo gudbinayaa faa'iidooyinka oo mooska leeyahay kuwaas oo wax ku ool ah waxaana kamid ah lambar 1 yareynta miisaanka. Mooska wuxuu gacan weyn ka geystaa inuu yaraado miisaanka qofka waxaana ku jira maado lagu magacaabo carbohydrate taasoo la dagaalanta baruurta iyo dufanka sidoo kale wuxuu gacan libaax leh ka geystaa miisaanka qofka oo hoos u dhaco. lambar 2 awoodsiin. mooska wuxuu leeyahay awood dheeri ah oo jirka siiyo waxaana inta badan lagu abooriyaa dadka sameeya aalamiitada inay cunaan moos kahor intaysan sameyn aalamiitada taasoo jirka u siyaadinaya awood dheeri ah oo suurtagelinaysa inuu aalamiiteeyo 90 daqiiqo oo xiriir ah qofka. lambar 3 wuxuu daawo u yahay habdhiska dheefshiidka iyo calool fadhiga. waxaa ku jira mooska nooc ka mid ah borotiinada geedka waxaana ka qayb qaadataa inuu si wanaagsan u shaqeeyo habdhiska dheefshiidka iyo inuu jilciyo caloosha istaagtay asoo wax daawo ah aan loo kaalmaysanin wuxuuna la dagaalamaa mooska inay caloosha fadhiisato. lambar 4 wuxuu daawo u yahay aashitada. wuxuu ka shaqeeyaa mooska inuu daaweeyo iyo inuu yareeyo aashitada caloosha si degdeg ah. lambar 5 wuxuu daawo u yahay dadka caba sigaarka. wuxuu daawo caafimaad u yahay dadka caba sigaarka kaasi oo ka saaro wasaqda sigaarka wuxuuna yareeyaa saameynta uu ku leeyahay sigaarka jirka waxaana ku jira koox fitamiina kuwaas oo ka shaqeeya inay saaraan saameynta xunxun oo jirka sigaarka ku reebto. lambar 6 wuxuu caafimaad u yahay wadnaha. potassium waa cunsur aasaasi ah kaasoo u shaqeeya inuu ilaaliyo in wadnaha si nabadgelyo ah ugu shaqeeyo waxaana habeeyaa uuna daawo u yahay dhiigkarka. cunsurkan waxaa laga helaa cuntooyinka oo kamid yahay mooska. cunista mooska waxay daawo u tahay cudurro badan oo ku dhaca wadnaha. lambar 7 waxa uu la dagaalaa gabowga. mooska waxaa ku jira fitamiino kuwaas oo aad u sarreeya oo ay kamid yihiin fitamiin A fitamiin C sidoo kale waxaa ku jira aashitooyin diidaya inay imaato gabow degdega. asxaabta qaaliga fiidiyoogan ku like saar ana hilmaamin inaad subscribe noo saarto channelka aniga fiidiyoogan ku xigta kulmeen sidaas iyo nabadgelyo.